haddii muuqaalkan marka hore uu soo gaaray waxaad arki doontaa dad badan oo qoysaskooda ay garan la yihiin marka muuqaalkan waxaan ka codsanayaa marka horeba inaad la wadaagto saaxiibadaada si loo helo ehelada marxuumiinta iyo kuwa dhaawac ay halkan jiifaba markii ay bilaabatay ciyaarta Ingiriiska ee Spain taasi oo ahayd finaalka Euro-ga oo hadda qaybta dambe ay socoto waxaan isku diyaarinaynay daawashada ciyaarta qof walba wuxuu soo qabsaday kursi wuxuuna fadhiistay meel kasta qofka uu ku dareemi karo inuu si raaxo leh ciyaarta finaalka ugu daawan karo hal mar ayaan maqalnay dhawaqa jug culus waxa la socotay ayuu yiri uuro holac dhagahana hal mar ay shibna dhahayn qofkan ka hadlaya waa mid kamid ah dhalinyaradii ka badbaaday balse saaxiibadii ay ku dhaawacmeen gudaha maqaayad ku taalo meel aan sidaa ka fogeen xarunta daljirka Dahsoon ee magaalada Muqdisho maqaayadan waxa lagu magacaabaa Top Cafe waa mid kamid ah maqaayadaha cusub ee sida casriga loogu dhisay magaalada Muqdisho hal mar ayaa la wada maqlay dhawaqa jug culus taasi oo dadka reer Muqdisho oo dhan ay wada maqleen waxay isweydiinayeen halka uu ka dhici kara qaraxan iyo sidoo u dhacay ilaa iyo haddana xitaa saraakiisha laamaha ammaanka ee kala duwan booliiska nabad sugidda iyo si lamid ah ciidamada kala duwan ee dawladda ee ku sugan magaalada Muqdisho wali waxay garan la yihiin qaraxaasi nuucu ahaa in baabuur laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxo halka uu ku qarxay iyo si lamid ah in halka uu isku qarxiyay nafti halige ka tirsan kooxaha qawaariijta ee dalkeena dhibaatada ku hayso waxyaabaha marka cajiibka ee qaraxa markuu dhacay dhibaatada ugu badan sababta u ahaa waxa kamid ah booydan aad u jeedaan booydan waxay waday shidaal waxa hadda shaki badan laama ammaanka ay ka qabaanba in loogu talagalayba qaraxa iyo in wadada ay mareysay baaritaan ay ku hayaan saraakiisha nabad sugidda oo durba tagay goobta uu qaraxa ka dhacay waxaad isweydiinaysaa marka dhimashada iyo dhaawaca jawiga halkan waa sidee waqtigan aydin la hadlayo oo muuqaalkan idin soo gaarayo halkan waxa yaalo ilaa hadda dad meedadkooda la garan la yahay cid ay yihiin shakhsiyaadkaas ehelkooda ayaa la garan la yahay sida waxa kamid ah qof dumar ah oo aan muuqaalkiisa inta badan halkan aan ku daawici karin iyo si lamid ah waxa kamid ah dhalinyaro aad u daayar oo hadda soo baxayso markaan dib kuugu celiyo gudaha maqaayada Cafe Top ama maqaayada Top Cafe oo caaw ciyaartu ay ka daawanayeen qaraxan uu ka dhacay waxa ku sugnaa in ka badan 30 dhalinyaro kuwaasi oo ka daawanayay ciyaarta iskuna balansaday maalmahan oo dhan intuu socday koobka Euro-ga ka daawanayay ciyaaraha halka way ku qaadanayeen mid kamid ah waqtiyadooda ugu quruxda badan oo ay dhalinyaradu iskugu imaanayaan ciyaaruhu ku daawanayaan ku sheekeysanayaan sheex ku wada cabayaan habeenka ciyaartu ay jirto iyo habeenka kale aysan jirinba taasi oo muujinaysay ififaalo nabadeed in magaalada Muqdisho markan dhalinyaradu ay ku mushaaxi karaan iskugu imaan karaan ciyaaruhu ku daawan karaan wax walba oo farxadana halka ku wada qaybsan karaan caawa halkan waxa ka dhacay ma ahan wax dhagaha iyo indhahaba u roon marka tahay qof Soomaali ah sababtoo ah walaalkaaga walaashaada iyo waalidkaada oo caawa dhimanaya markaad aragtid waa xaalad kamid ah xaaladaha ugu xanuunka badan oo ah hadana si tabinaysidba muuqaalada marka iyo qaybo ka tirsan sawirada oo aan halkan ku baahin karin waxaan si toos ah ku geyn doonaa linkigooda aalada linkiga Telegramka halkaas oo aad ka heli kartid muuqaalada iyo sawirada qaybo ka tirsan oo aan halkan ku baahin waayay haddii muuqaalkan marka hore uu soo gaaray waxaad arki doontaa dad badan oo qoysaskooda ay garan la yihiin marka muuqaalkan waxaan ka codsanayaa marka horeba inaad la wadaagto saaxiibadaada si loo helo ehelada marxuumiinta iyo kuwa dhaawac ay halkan jiifaba dhowrkii bilood ee ugu dambeysay magaalada Muqdisho waxay gashay magaalo nabdoon waxay gashay gacan ammaan ah si lamid ah waxay gashay gacan bir ah waxana kama dhicin oo weerar kooxaha gabadh ee geystaan khawaarijta si lamid ah kama dhicin qaraxyo ilaa iyo inta la og yahay sidaan oo kale ciidamada dawladda Soomaaliya waxay aad u adkeynayeen amaanka guud ee magaalada Muqdisho marka la joogo xamar afarta geesba waliba kaalinta ugu weyn waxa qaadanaysay dhalinyarada diyaarsan ee dharcadka ee lagu daadiyay degmooyinka kala duwan ee gobolka laakiin caawa weerarkan wuxuu noqday mid naxdin badan kadib markii dhalinyaro Soomaaliyeed ciyaar daawanaysay farxad qaadanaysay
meel wanaagsanna fadhisay hal mar in caawo marxaladoodu isbedelay qaraxna uu ka dhaxdhacay ilaa iyo haddana laamaha ammaanka ee garanla yihiinba qaraxaas siduu u dhacay iyo cidda geysatayba inkastoo saraakiisha qaybo ka tirsan oo aan la hadlay waxay ii sheegeen warka ah inuu noqon karo qof isqarxiyey in kaasi uu yahay 10% laakiin baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxo in la dhigay maqaayadan Top Cafe 90% saraakiishu waxay sheegeen inuu noqon karo baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxo khasaaraha ugu weyn waxaa sababay booyad kaalin shidaal waday oo maraysay wadada markii uu qarax dhacay inkastoo iyada qudheeda laga shaki qabo loona maleyn karaba in weerarka qayb ay ka geysanaysay muuqaalkan halkan ayaan kuu soo gabagabeenayaa la wadaag saaxiibadaada inkastoo saraakiisha qaybo ka tirsan oo aan la hadlay waxay ii sheegeen warka ah inuu noqon karo qof isqarxiyey in kaasi uu yahay 10% laakiin baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxo in la dhigay maqaayadan Top Cafe 90% saraakiishu waxay sheegeen inuu noqon karo baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxo khasaaraha ugu weyn waxaa sababay booyad kaalin shidaal waday oo maraysay wadada markii uu qarax dhacay inkastoo iyada qudheeda laga shaki qabo loona maleyn karaba in weerarka qayb ay ka geysanaysay muuqaalkan halkan ayaan kuu soo gabagabeenayaa la wadaag saaxiibadaada dhowrkii bilood ee ugu dambeysay magaalada Muqdisho waxay gashay magaalo nabdoon waxay gashay gacan amaana si lamida waxay gashay gacan bir ah waxana kama dhicin oo weerar kooxaha gaba ee geystaan khawaarijta si lamida kama dhicin qaraxyo ilaa iyo inta la og yahay sidaan oo kale ciidamada dawladda Soomaaliya waxay aad u adkeynayeen amaanka guud ee magaalada Muqdisho marka la joogo xamar afarta geesba waliba kaalinta ugu weyn waxa qaadanaysay dhalinyarada diyaarsan ee dharcadka ee lagu daadiyay degmooyinka kala duwan ee gobolka laakiin caawa weerarkan wuxuu noqday mid naxdin badan kadib markii dhalinyaro Soomaaliyeed ciyaar daawanaysay farxad qaadanaysay meel wanaagsanna fadhisay hal mar in caawo marxaladoodu isbedelay qaraxna uu ka dhaxdhacay ilaa iyo haddana laamaha ammaanka ee garanla yihiinba qaraxaas siduu u dhacay iyo cidda geysatayba inkastoo saraakiisha qaybo ka tirsan oo aan la hadlay waxay ii sheegeen warka ah inuu noqon karo qof isqarxiyey in kaasi uu yahay 10% laakiin baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxo in la dhigay maqaayadan Top Cafe 90% saraakiishu waxay sheegeen inuu noqon karo baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxo khasaaraha ugu weyn waxaa sababay booyad kaalin shidaal waday oo maraysay wadada markii uu qarax dhacay inkastoo iyada qudheeda laga shaki qabo loona maleyn karaba in weerarka qayb ay ka geysanaysay muuqaalkan halkan ayaan kuu soo gabagabeenayaa la wadaag saaxiibadaada mahadsanideen